qarannimada Soomaaliyeed iyo madax banaanida iyo sovereignty-ga iyo independence-ga ayaa anagtaygu u dhuqsan yahay oo ma garanaysaa aabi soconaya oo saa isku goodadeynaya ayaa caalamka loo goosanayay ninkii nina ID 19 ID-gi ayuu wuxuu lahaa cagayar ciidu ku galay ciidu ka soo maray ma garanaysaa marka dadka kan horta taariikhdu horta waa saas waxa marka aad kula googoosanaysid ma nin madax baa ka dhashay ma saraakiil magac laha ka dhalatay ma maal qabeen baa ka dhashay ma dad ummadda Soomaaliyeed fingerka ah oo la garanayo baa lahayd wixii 80kii ka horeeyay ma lahayn miskiin dhashay oo isku maciirsata ah oo boon ah oo maxaan ku dhahay hadii lagu xagga loo maro marna xagga loo maro ayaad ahaydeen ilaahay haddana waa tihiin anuguna waxaan ahay ninka kibray oo baanay yaa oo afka gobolka galguduud ilaa ma xeebta Soomaaliya meesha ka dhamaato Indian Ocean ka galaan degan baana iyo xuduudda Itoobiya saa u bilqan aduguna aragtir waxa la intay aragtay urgiba ugu weyne Quraceel iyo Dhuusamareeb dhexdooda ayaa ku dhalatay kuna soo kortay awoogaana ku soo koray caalam iyo adduunyo iyo maxaan ku dhahay ilbaxnimo iyo hoggaan iyo midna ma lihid ceebtaada haddana inaad xishoonaynin oo aad yaxaynin oo aad ina wax isku falaynin ninkii aad u shaqayn jirtay your own boss your own manager your own executive kaagi ayaa rabta lagu goosatay miyaad xishoonaynin ninkii aad jikada ugu jirtay oo sidii aygi alahayd hortiisa oo kulahaa kaliin garay carrada oo ishaqee oo hawsha qabo yaa baa la ka gasanaysaa nin baa waxaa la yiri eeg ninka ragga waa inuu hadalkiisa murtileeyahay nin baa jiray dadka la yasaa gorayadu leeyin jiray marka gorayadu leeyin jiray gabar oo leeyin jiray gurigiisa baa loo soo doomar nin iska garbaarataa buu ahaa xoolo lama lahayn gurigiisa baa loo soo doomaro laga adeegtay wuxuu yiri gorayada irmaan iyo inta gabanta hiigay si harac iyo niman baa fadhiyo hoos galihii iyo biyaha qabow iyo cuntada hool leeyahay inta caawo dhan waxa weeye ugaarta leeynay hadda baa laga adeegtay adigu marka ninkii ugaartay baan ahaa ani baad ahay anigu ninkii hurday baan ahaa oo maartay jagada iyo qadaadka u jiifay baan ahaa oo la dhahay maxaa la sameeyaa ninkii la lahaa baan ahaa seebaad ila hadli kartaa marka adeerkaa lama sheekaysan jirin awowaa lama sheekaysan jirin inay adiguna isku title manihi ma garad isku title manihi marka dadkaas baad ahay aydiid wuxuu yiri ariya aydiid waxaan cunaa suu yiri waxaan cunteen ma hayee ciida cuna ku yahay guntu dhish oo maxaan ku dhahay hadii la ku ruun yahay bila taariikhda ah oo bila dooniga ah oo bila qadiyada ah oo bila hadii la ku ruun yahay faar quraac baa tiin gidigi dadkii noocaas ah marka inay caawo wiil governor dhalay ah oo gaariyada Soomaaliya taariikhdiisa GS ku qoran jiray GS markii la macayr maxaa lagu qoray marka ma taariikhna ma haysto waliga gaari ma walahayn ma wayna lahayn baartaan la kaftantii see wala kaftamaysa marka xaraam way hadii marka la yiraahdo ka waran waxa kaftamaya Mareykanka iyo waxa kaftamaya hadii alla ku ruun yahay iyo Djibouti baa kaftamaya ma kaftami karaan ama Mareykanka iyo waxa kaftamaya hadii alla ku ruun yahay iyo wadan yaro maartay wadamadaas tor world ka kamida ma kaftami karaan anigu Mareykankii baan ahay adeer gacali Mareykanka Soomaaliya waa aniga ismii Mareykanka beesha habar gidir waa aniga aduguna maxaa tahay marasti baa tahay dadka waxa tahay aan tala iska maqlin aan aqli lahayn aan nin taliya lahayn nin duulo dirac amal oo nin diin ka xareeyo ma lahu yiri ina adeer gacali inna ma leedin kiina diinta bartana احتراف بقيت كل oo diintu madax marto buu filooyin isku soo xiraa kasira asqaxa ya jannadi ya dhow arya jannadi fiirday jannada ma qof isku qarsaa gulaysa eg ayrow hakiga saxiin odaga hadeertaan meeshan ka socayto youtuberka ah oo inta jeebada lagu dhajiyo isagoo 90 jira oo ramadan inuu qarxiyo oo adiga ku dhameeyay habargida kale ma dhamaynin hawiye ma dhamaynin hiraa ma dhamaynin Soomaali kale ma dhamaynin aduu ku dhameeyay muxuu ku dhameeyay adiga qarax buu ku dhameeyay iyo dagaal iyo mid kasta lagu ka gooy anagii baana ka qabanay marka dadkii kala dawladii Soomaaliya
iyo caalamkii baa lii dadkan waxba ka harimayaane qofkan waa in laga qabto jeeb baanu ku dhijinay wuxuu joogaa halkaas youtuber buu noqday halkaasuu ka soo hadlaa waxaa weeye anigu waxaa weeye midgaan dhalay oo hunufa oo guulal cadda ah oo aan awowiis taariikh ugu dhiman baad aniguna maxaan ahay aniguna dadka magaca leh oo ilaahay sharfay oo maaragtay dadka la googoosta oo la yiraahdo war madaxdii baa timid war soo dhaweeyay war walaa leerihi Saacid Saciid war waa ninkii hadii la kuriyo gobonimada badnaa war waa ninkii gobonimada keenay war waa ninkii dhaqanka lahaa war waa ninkii maaragtay kaftanka lahaa war waa ninkii dadka yaqaanay war waa leaderskii iyo maaragtay asadkii ummadda Soomaaliyeed ayaa meesha maraya u baneeya soo fariisto la dhaho ismi aniga way adigana qofan beel ku dhintaa midkiina madaxda ah ama madax noqdana asagoo kabna laalaadinay kabna afka ku wada ayuu waxa weey meel daran buu ku dambeeyaa marka waxa ka sheekeynaysa maxay tahay marka maxaad ka sheekeynaysaa ma waxa ilaahay hormaanaysa hadii la ku ruun yahay dadkan ogahay ilaahay hormaanaysa marka niyahow markuu dhicin qiyaamuhu kun hal oo qayaayada oo qoys kaliya aadmiga laga qaadin daahay yiri meenin ay tahay markuu dhicin qiyaamuhu waxa la yiri caruurta iyo waxba garatada iyo ma garanaysaa dadka laga tirada badan yahay laga aqliga badan yahay iyo dadka aan maaragtay waxba garanaynin ayaa hadlaya yeela hadlayaan waxay la hadlayaan culumadii professoradii dadkii aqliga iyo maxaan ku dhahayay ummadda madaxooda ahaa bay la hadlayaan marka dadka ila hadlaya marka waa dadka noocaas marka weey inaysan ahayn ba ku sheegay marka maxaad ku sheekeynaysaa marka waxaad ahaysaa waa isqarxinaya aniga isku lama ogola isqarx waxaan ku noolahay duri qaraxa iyo argagixisada ay ka caagan tahay meelahan ayada aan isku qarxiyo xaraan caleeg isma qarxiyade meelahan waa lagu sheekaystaa dadku waxay u yimaadeen inay nolol ka samaystaan inay safe ku noqdaan in ay ma garanaysaa hore u socdaan bay u yimaadeen laakiin ariya waa isqarxa iyo hadaa mayga la ii dhiibin hasan isku qarxinde wada wani qarax wada wani marka ma hadii la ku reeyahay inta cadda meesha jooga marka oo waxa weey raba inuu qarxiyo marka mase inuu daahir weysa jooga ma joogan teenaad mina ma joogo mase waxa jooga hadii la ku reeyay kuwii kale ma joogan mid Soomaaliyeed baa joogta hadaa qarax rabtid xaafadina laad or is qarxi adigu blow yourself up damn it or is qarxi maxaa marka aniga qarax igala soo dooranaysa inaad argacali marka anigu qaraxna ma aqaan waxaasna ma aqaan taariikh nin leebaan ah inaad argacali ninka waxaan ahay xaduudda Ethiopia meesha la dhaho ka xandaale furinta foore wixii ka soo rogan hadii alla ku idmahayo sii wad dhinaca kale ee galbeedka gobolka Mudug iyo bariga gobolka Mudug iyo maxaan ku dhahayay xeebta hobyo iyo maxaan ku dhahayay ka shishay iyo dooxa golol dhika soo celisa dhul baaxadaas leebaan ahay ninka waxaan ahay aasayaashii ummadda Soomaaliyeed baan aabihii ummadda Soomaaliyeed baan ahay the founder of Somalia garanaysaa baana adigu markaas maxaad ahayd maxaad ahayd maada jirin la wala baad ahayd maada jirin geel idaha sacabsanays idaha ayaa sacabsanays marka ayada ah oo anigu adduunka aan la googoosanay idaha sacabsanays naan exist baad ahayd maxaad marka ku sheekeynaysaa marka ayaa habar gidir asaan la jiri ayaa ninka habar gidir ismi aniga weeye habar gidir aniga ahana waxaan ku sheegayaa ninka dhiigiisa u horay maxaan ku dhahayaa magaca habar gidir ku faanto siyaasadda haday noqoto maxaan ku xurriyad keen haday noqoto saraakiil haday noqoto maxaan ku dhahayaa dagaal haday noqoto dad maaragtay hadii la kuuriyo xunu cala la guduudano laga dulqaado calankii dawladda kacaanka ya haday noqoto ismi aniga weey adigu ma lahayn adiguna marka waxa tahay dadka guriga looga tagay baa tahay inaad argacali oo gurigooda iska jooga masaakiinta baa tahay waxaad ka sheekeynaysaa marka waxay uga hadli kartaa aniga in la kaftami kartid ma nin alla kaftami kartid anigu ma ahi anigu marka waxaan ahay inaad argacay ninkaas baan ahay adiguna qofka waxa tahay noocaas oo maxaan ku dhahayay tamaygiisi isku haleyn waayay inuu wuxuu ku sheegi lahaa sugto ayaate naga tixin ari inaad rag waliga la soo kaftamin awooga rag la kaftami jirin wallahi oo billahi tolaa dadku markay aanu umada la kaftamayno